Taiwan iyo sidoo kale mas'uuliyiin oo hogaaminaya ayaa waxay maanta kulan la qaateen guddida arrimaha dibadda ee golaha guurtida u qaabilsan. kulankan ay wada qaateen safiirka Taiwan iyo mas'uuliyiinta uu hogaaminayo iyo guddida arrimaha dibadda u qaabilsan xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland oo gudoomiye u yahay xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Xasan Indho oo muddo saacada qaatay markii uu soo idlaaday waxa warbaahinta ugu horeyn halkaasi kula hadashay Faadimo Saciid Ibrahim oo iyadu ah senior foreign affairs and advisor waxaana hadaladeedii ka mid ahaa safiirkii Taiwan oo maanta soo booqday golihii guurtida marka taas waxay muujinaysaa caalamkii indhahooda inuu doorashadii quruxda badan ee wanaagsaneed ee aanu qabanay ee Ilaahay nala qabtay inay indhaha soo jeedisay xafiiskan iyo saaxiibnimada iyo maxaa hay'adiin wanaaga aynu labada wadan ay maanta maxaa hay'ad ku joogaan inay indhaha soo jiidatay waxaanay maxaa hay'ad maanta aanu aad iyo aad ugu faraxsanahay 17 August wuxuu noqonayaa the 1 year anniversary masha Allah ee xafiiskan uu ka taagnaa maxay ahayd Somaliland waxaanay qabanayaan maxay ahayd xaflad aad iyo aad weyn oo ay maxay ku dabaaldegayaan sanadka marka runtii waxaanu leenahay saaxiib qaaliya bay Taiwan noo noqotay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inay sidaa iyo si ka wanaagsanba maxay ahayd aynu ilaaqaadkeeni iyo wada shaqaynteenu ay ka sii badato waxa isaguna halkaasi ka hadlay safiirka Taiwan isla markaasina tilmaamay in xafiiskan ay Taiwan ka furatay Somaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa oo xilligii la aasaasay xilligani ay ka soo wareegtay muddo sanada isla markaasina ay dhawaan loo dhigi doono xaflad ballaaran. And I also would like to share with you this some of the informations especially the function that we are scheduled to organize on August 17th. It was last year, this office on that day established. We would like to just celebrate the 1 year anniversary with the Somaliland friends for the establishment of our office for 1 year. Together, we would like to also take that occasion to award the 20 Taiwan scholarship recipients. And on that day, we would like to also to share the joy with Somaliland friends. ugu dambeyn waxa halkaasi ka hadlay xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Xasan Indho waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxaan ugu yeedhnay safiirka Taiwan iyo tiimkiisaba inaan uga mahadnaqno muddadii yareedii ay joogeen sidii ay Somaliland wax la qabteen waxaan ku faraxsanahay iyagoo waqti yar nala joogay sida ay dhinac walba nooga caawiyeen hadday coronavirus tahay hadday scholarshipkii tahay hadday tahay doorashadii ay naga caawiyeen hadday tahay waxyaabihii kale ee faraha badnaa ee ka qayb qaateen taas oo aanu aragnay inay noqotay safaaraddii ugu shaqada badnayd 2021 ee caalamka Taiwan ka joogta sidaanu baraskii caalamka ku aragnay waanu ku faraxsanahay annagoo ku hadlaynaa magacii guddida iyo kiishir gudoonkaba waxaanu ku marti qaadnay inaanu arinta ku appreciate gareyno ugu mahadnaqno si ay u sii wadaan xidhiidhada wanaagsan ee ay dawladda dhinacyadeedii oo dhan leeyihiin amaanta waxa leh labada madaxweyne ee madaxweynaha Taiwan iyo madaxweynahayaga foreign relationka anagu isma garab cararno head of state ka noo ah inaanu sii kordhino waanu ku talo jirnaa ayagoo sidoo kale wafdiganna ay indhayn ku tageen hoolka weyn ay fadhiistaan xildhibaanada golaha guurtida Somaliland. Umar Cali Ducaale Umar Shabash telefishinka bulsho magaalada Hargeysa. Qoonmaal Islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islaam iyo fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban
ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir 15 eber maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo macmiil ma ogtahay inaad ku guulaysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri dhul iyo hadiyado kale oo qaaliya sida mobaylo MiFi geel ari dahab lacag iyo internet bilaasha haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guulayste isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal internet iyo e-dahab kaga shubo e-dahab xidig 1 eber 1 4 gees nasiib wanaagsan